السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan isugu nimid shirkan inaan kaga hadalno shirkii dhacay 6dii bishii tobnaad ee shalay ka dhacay oo khamiis ahayd oo shirkaas looga hadlayay xulista xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaan markii ka soo jeedino mowqifkayga ku aadan shirka waxaan ka qabnaa wixii ka soo baxay ama la isla gaaray inaan u sheegno beesha caalamka ee dawladda federaalka dawladda Puntland guddiga doorashada guddiga khilaafaadka inaan qaadacno shirkaas waxa dhacday in la isu yimid dad aan mathalin annaga mathalin ay go'aan ka gaareen xubintaas waa qaadacnay wixii ka soo baxay meeshaas saddexaad waxa ka soo baxay federaalka laga helay 3 xubnood 2 xubnood baarlamaan ah iyo xubin aqalka sare ah xubin baanu lahayn annagu ka beelahan 3 xubnood waxa isku qaadatay beesha Isxaaq Cumar waan wadaagna magac Cumar Axmed wuxuu qaybsan wada leenahay qodobka afraad siyaasadda dawladda Puntland baarlamaankeeda golayaasha siyaasadda kuwa maamulka wax aan ka hayna ma jirto annaga ka beelahan Cumar boqolkiiba 80 wixii Cumar Axmed qayb u helay waxa haysa beesha Isxaaq Cumar Maxamed beelu isuma jiro baarlamaanku isuma jiro guddoonku isuma jiro xilku isuma jiro waxaanu haynay baa loo soo dhigtay oo laga daba yimid oo nal ku qabsaday waxaanu nahay beesha Maxamed Cumar Maxamuud sidii horeyba loo sheegay waxaana la ku sameeyay dulmi aad u cajab badan arrintaas arrin mucjisa ah weeye markaanu arrinta aragnay ayaga iyo nabadoonnada shalay hadlayay oo ku doonayay xubintayada iyo ciddii la raayayaba tolnimo guddoon talo kulli waa ku kala tagnay saxiixihii loo soo xil saaray waraaqdaas Cumar Maxamuud ismadu isugu jiraan qoloba isim bay leedahay maalinba nin baa loo soo xil saari lahaa waxaa loo soo xil saaray Islaam Bashiir Islaal Cabdille dulmiga uu ku galay daraadeed mar dambe iyo mar hore iyo haatan aynu joogno midna guddoon kuma matalo beesha Cumar Maxamuud Maxamed Cumar waxaa la dhisay Puntland 98 afar qaybtii lagu qaybtay afar kursi baa Cumar Maxamuud helay afar reer baa lagu fariisiyay 3 Isxaaq Cumar iyo Yoonis Cumar ilaa yoomana hada iyaga ku fadhiya waa dhaxal oo kaleeto kii dhintaba mid baa bedela kii gabooba mid baa bedela kii meel aada mid baa bedela dhaxalka weey inagu waxaan helay halkii aan ka helay ceel dooreed shirkii lagu qabto imbigaati lagu soo gabagabeeyay ba layna ku haystaa hadda yaa ku haystaa Isxaaq Cumar baa haysta oo ku dhagan oo warka anaguna halkaana daadkaana wax nooga jiraan daanka kale ay angelin bay leeyihiin saasay leeyihiin sababtu waxa weeye fiiri haddaad luuf iyo la abreeteen buurlinkii liqma laydan ka raacay wiilashii ragga laayay wankaan loof galeynay lubul ma tagtaan ayuu ku yiri waxa weeye waxa ka dhigan shirkii lagu qabtay shalayto meesha la gaalkacyo qaabka uu ahaa haddaad fiirisid waa sidaas oo kale waxay ahaayeen kulligood Isxaaq Cumar bay ahaayeen ana 2016 bishii tobnaad 6deedii shirki ka dhacay guriga Islaam Bashiir Isna Cabdille oo munaafaqada ku saraysnaa shirka waa qaadacnay haddaan nahay beesha Maxamed Cumar shirka waa qaadacnay waxaanu ku qaadacnay sabab badan hortay baa la soo akhriyay sidii loo soo akhriyay awgeed aanu ku qaadacnay beesha Maxamed Cumar waxay ku baaqaysaa suldaan bay leedahay wixii xaaje iyo wixii xaalad ah hadday shacabti iyo hadday dawlad tahayba suldaanka u matala suldaan Cabdiqani qorana Maxamed baa u matala
waxaa dhacay maantay dagaal baa dhacay dagaalka wuxuu ka dhacay gaalkacyo gobolka mudug aad baan uga xumnahay dad islaam ah oo ehel ah oo deris ah inay ku dhintaan aad baan uga xumnahay marka ugu horeysa tacsi baan direynaa dadkii dhintay ilaahay inuu naxariisto kuwii dhaawacmana ilaahay u boogadhiyo caafiyo marka saddexaad waxaan u soo jeedinaynaa labada garab oo ku dagaalamaysa gobolka mudug colaadda ka horinaysa ummadda islaamka inaan la isku goyn dadka deriska walaalaha aan la isku goyn nabad baan ugu baaqaynaa xasilooni iyo nabadgelyo in lagu soo dabaalo colaadda ka jira gobolka mudug sababtoo ay tahay dagaal waxa la wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dadka islaamka dhiigooda in la daadsaana waa xaraan qof islaam ah in dhiigiisa la daadiyana cara ilaahay oo dhacda weeye in adduunka oo dhan la rogo baa uga sahlan qof islaam oo dhiigiisa la daadiyo ilaahay marka caradaynu ku dhacday abaarteena haysatay colaaduba waa maalayacniga la xalaalsaday dadka islaamka oo la dilayo waxaan leenahay dadka islaamka waa inay nabadgelyo ku wada noolaadaan colaadda la damiyo nabadgelyo iyo heshiis lagu wada yimaado wixii la isku hayana laga wada hadlo saas baan ugu baaqaynaa dadka islaamka walaalaheena in colaadda la joojiyo baaq nabadeed baan u direynaa intii dhimantana Allah u naxariisiyo si degdeg ah in xabada loo joojiyaa sidaas baan haddaan nahay beesha maxamed cumar ugu baaqaynaa dadka is haya iyo dagaalada ka socda gobolka mudug gaalkacyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh هذا لم يعدل ويمان